haddii qof kugu qabsado gurigaaga adigoo xaqdarradaas la yaaban ka waran haddii lagugu yidhaahdo xaaladda dejiya oo arrinta wadahadal ku dhammeeya xiisadda Itoobiya iyo Soomaaliya sidaas ayay la mid tahay laakiinse jawaabta saxda ee uu bixinayo qofka gurigiisa lagu qabsaday waxa weeye maxaan ka wada hadlaynaa kaliya qofkaasi gurigayga ha ii daayo waan arkayay maalmahan dambe in si munaafaqadaysan ama isyeel ah loo wajahayay faragelinta Itoobiya ku samaysay dhulka Soomaaliya oo lagu baaqayay inay wada hadlaan Soomaaliya iyo Itoobiya taasina sax ma aha waa in Itoobiya loo sheegaa inay ka laabato wixii ay heshiiska ku sheegtay oo ah tallaabo balmarsan shuruucda dawladnimadu ku dhisan tahay Soomaalidu waa inaanay maanta isku furin daaqad shar ah oo aan hadda kadib weligeed xirmi doonin dawladda Soomaaliya waxaan kula talinayaa inaanay wax wada hadal ah la gelin Itoobiya ilaa inta Itoobiya ka laabanayso heshiiska xadgudubka ah in badan ayaan diblomaasiyadda ka soo shaqaynayay waan aqaanaa arrimahan iyo ifafaalaheeda maalintaad ogolaatid arrimahan oo kale inaad wada hadal ka geshid adiga ayaa lumiyey qiimihii uu lahaa dhulkaagu sharafkaagii oo ah xuduudka waddan la aqoonsan yahay waa bar casaan ah oo aan laga gudbi karin markasta Turkigu wuxuu garab taagan yahay kuwa la dulmiyey waana mabaadi'da xisbigeenna iyo dawladdeenu ku dhisan tahay dadka iyo dawladaha kartida leh waxa lagu gartaa astaamo gaar ah dadkaasi waqtigooda kuma lumiyaan calaacal iyo cabasho sababtu waa inay og yihiin arrimaha dhacaya inay yihiin kuwa lagaga bixi karo adeegsiga caqliga awood iyo karti iyo inaanay noloshu ahayn 100% mid markasta dhinaceeda saxda ah ku siinaysa laakiinse loo baahan yahay halgan iyo inaad taqaanid wadada saxda ah ee aad xaqaaga ku soo dhacsan lahayd adigoon ka daahayn barwaaqo iyo wadajir ayaan bulshada Soomaaliyeed u rajaynayaa kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Turkiga Çavuş Oglu oo haddana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Turkiga oo waraysi siinayay warbaahinta Haareed waa Cabdirasaaq Jubbood intaan dib u kulmayno nabadgelyo